soo dhawaada saaxiibayaal waxaan idin la wadaagayaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ka fikiraya laba arin oo aad u waaweyn midkood in uu qaado kadib markii dhaleecayn iyo fadeexad uu kala kulmay shacabka iyo waxgaradka deegaanadaasi iyo guud ahaanba madaxda qaranka ee dowladda federaalka ciidamadii ugu badnaa oo ka baxay garabkii Saciid Cabdullaahi Dani una soo wareegay dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya caawa waa xaaladda guud ee waqooyi bari maamulka la yiraahdo oo caleemo saarka firdhiye loogu balansan yahay maxay fariin ah ay gudbinaysaa in madaxweynihii qaranka xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galo haddaba been iyo fadeexad ma ka dhigaysaa aqoonsi beenaadkii maamulka Somaliland ee Soomaaliya waxa soo kale halkan aan idinku la wadaagayaa maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya oo bilaabay in shacabka been iyo propaganda uu ka gado haddaba maxay yihiin wararkii ugu dambeeyay ee la faafiyay saacadihii la soo dhaafay halkan ayaan rabaa inaan idinku la wadaago soo dhawo muuqaalka si gudbi la gare share gare oo la sii wadaaga asxaabtaada hagaag waxaan ku bilaabaynaa Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa ka fikiraya laba arin midkood inuu ku dhaqaaqo tan koowaad waxay tahay inuu iska xasilo xilka hogaamiyaha maamulka Puntland iyada oo waqti kooban u harsan yahay culaysyo waaweyn oo ka soo wajahay shacabka waxgaradka salaadiinta kuwaas oo ku qadiyad ku noqon waayay in ay taageeraan go'aanka uu goonidu ku yahay iyo hadalkii uu ku duray dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii wadanka ay ka ceerisay imaaraadka raba in uu wadanka kala gooyo sidoo kale wuxuu ka fikirayaa in uu raaligelin siiyo madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse iyo shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo u taagan markasta midnimada dhuleed iyo dadeed iyo madax banaanida dalka in la ilaaliyo haddaba tani waxaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay uu geliyay wada tashi ku saabsan in labadaasi go'aan midkood uu qaato laakiin wali waxaa socda falanqeyn iyo faahfaahin arrintan ku saabsan waxaana saacadaha soo socda la rajeynayaa in labadaas midkood uu ku dhaqaaqo oo uu raaligelin siiyo shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka iyo in uu xilka isaga tago kana baxo arrimaha siyaasadda ee dalka maadaama ay u muuqato in uu ku fashilmay haddaba waxaan isha ku haynaa kulamadaasi gooni-goonida ah ee Dani uu wado iyo labadaasi go'aan midkood uu qaadan doono saacadaha soo socda isla haddii aynu aadno Dani dhabarjab ayuu kala kulmay iyo fadeexad ciidamo uu ku tashanayay oo aad u badan kuwaas uu sheegayay in ay dowladda federaalka Soomaaliya u adeegsanayo in ay la dagaalamaan laakiin dhalinyarada ciidamada ah uu fahmay midnimada iyo madax banaanida dalka isla markaana wadaneed ay ka muuqato oo wata gaadiid dagaal oo aad u tiro badan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka soo ruqaansaday furmaha dagaalka xarunta madaxtooyada Puntland guriga gaarka ah ee Dani kuwaas oo isku soo shubay xarunta waqooyi bari oo ah maamulka curdunka ah ee dowladda ay dhistay maamul shacabkiisa iyo madaxdiisa u taagan yihiin difaaca dalka iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed haddaba ciidamadan oo cabanaya diif xun ay ka muuqato la daryeeli waayay ayaa saraakiishu waxay sheegeen in ay amar ka qaadanayaan firdhiye iyo madaxda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaana goobtaasi ballanqaad uu sameeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in gunooyinkooda iyo wax kasta u baahdaan dowladda federaalka ay bixinayso haddaba tani waxay muujinaysaa in waqtigan ciidamada ay fahmeen arrimaha siyaasadda ee gaarka ah iyo inay kala madax banaan yihiin arrimaha difaaca dalka iyo in shaqsi gaar ah uusan ciidanka qaranka ku shaqaysan karin haddaba tani dharbaxa kale ay ku noqonaysaa ayaa la leeyahay Saciid Cabdullaahi Dani iyo tiimkiisa kooban oo la aaminsan yahay inay ku fashilmeen hogaaminta siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo kuwa qaar oo dhalinyaro ah oo ku difaaca magaca Puntland iyaga oo aan ogeyn waxa uu ka shaqeynayo Dani iyo tiimkiisa waa hagaag gabagabada haddii aynu eegno maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya wuxuu noqday xudunta laga difaaco midnimada iyo qaranimada Soomaaliya kadib markii maamulka gooni isu taaga ee Hargeysa ee Soomaaliya ay ku fashilmeen 30 sano oo raadin gooni isu taaga 30 sano oo been loo sheegay ayaa la yiray
shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada 30 sano oo qarayska tuur ah iyo 30 sano oo aan wili dhaboobin wixii rajabeel ahaa ee dhagaha dhalinyarada Soomaaliyeed lagu afuufi jiray. haddaba tan markii ay dhacday oo maamulkaasi la dhisay midnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya marka laga tago Muqdisho hadda laga sii ilaalinayo gobolka la yiraahdo ama maamulka la yiraahdo waqooyi bari ee Soomaaliya waxa uu maamulka Hargeysa ee Soomaaliya bilaabay in uu faafiyo propaganda ayaa la yiray iyo been abuur sida ay noo sheegeen ilo loo qaateen ah oo ku dhow hoggaanka maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya in uu dhalinyarada u sheego in weerar lagu soo yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay weerarayso taas oo la rabo in shacabka loogu abuuro cabsi kale iyo fogeyn kale oo ah in ay shacabka Soomaaliyeed sii diidaan nidaamkii dowladeed. haddaba kooxda yar ee Hargeysa joogta waxaa lagu eedeeyay in ay rabaan weli inay shacabka ka ilaaliyaan dowladnimada qaarkood oo jecel in ay Soomaaliya ama guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliya la shaqeeyaan qaarkoodna ay rabaan in dowladnimada Soomaaliya wax ay ku yeeshaan laakiin leejaan lagu haayo. wararka kale ee soo baxay waxay sheegayaan in maamulka Hargeysa uu bilaabay in uu beegsado shacabka Soomaaliyeed oo aan kala soc lahayn isagoo ka dhex raadinaya shacabka yimid magaalada Muqdisho kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna saacadii la soo dhaafay gaadiid kala degay ayaa la yiray dad isugu jira habeen iyo caruur isaga oo xabsi guri uga dhigay meel aysan shacabku ku noolaan karin isaga oo ka urinaya in ay yihiin kuwa qaran jecel ay ka muuqato kuwa dal jecel ay ka muuqato isla markaana ka soo horjeeda danahooda guracan ee maamul goboleedka Somaliland ee Soomaaliya. haddii qaybtan aad nala soo gaartay muuqaalka sii gudbi like share gare oo la sii wadaag asxaabtaada isla markaana haddii aad wadani tahay qaybta hoose ku soo qor in Soomaaliya ay tahay hal wadan oo aysan jirin wax la yiraahdo dal Somaliland la yiraahdo laakiin uu jiro gobol la yiraahdo Somaliland ama maamul goboleed la yiraahdo Somaliland qaybta hoose noogu soo qor.